su-aasha ah hub waaweyn ma dalban karnaa oo tusaale usoo qaatay dowladda turkiya inay naga caawin karto. dabcan waxaan yaradib ugu noqonayaa xilligan hadda oo kala guurka ah waxaan ku jirnaa 18 bilood ee u dambeysay oo askari ugu dambeeyey oo ATMIS ah ama African Union ah uu Soomaaliya joogi lahaa. xaaladdan marka ku jirno oo dhowr maaragtay howloodo hal mar aan wada wadna ah oo ah inaan hal gacan kula dirirayno al-shabaab, gacanna aan ciidankii Soomaaliya dhisidiisa iyo tayeyntiisa hadday noqon lahayd tiro iyo tayaba, dhanka kalena aan maaragtay tartiibaadkii ATMIStan lagu bixin lahaa iyo aan uga shaqaynayno iyo cunaqabatayntii. waa howlo runtii aad maaragtay u wada complex ah oo dee hal mar in waxaasoo dhan la wada qabto aysan dee wax sahlan ahayn, laakiin annaga waxaa naga go'an aaminsannahayna in aan qaban karno xilligaas kooban, hadday noqon lahayd tayeynta ciidamada, defiidka al-shabaab iyo kala wareegidda ATMIS. arrinta marka oo hubka sidaan sharxay sanadkii horeto markii la cusboonaysiinayay cunaqabataynta, waxyaaba technical oo halkaan aan ka sharxi karin ayaa jira oo ah in meeshii marka hore ahaan jirtay in aan markii aan hubkan nooca waaweyn aan soo gadanayno ama aan cid ka dalbanayno nooga baahnayd oggolaansho, waa laga bedelay oo waxaa la yidhi in aan notify garayno councilka. marka farsamadaas oo aad khafiif u ah runtii markii la fiiriyo farsamo ahaan, haddana sumcad ahaan dowladdu markii weli imbaargadu laakiin ay ku saaran tahay dalal aanan kula macaamilayn iyo shariikado aanan kula macaamilayn ayaa jira. marka technically waa gadan karnaa, su-aashaada haddaan kaaga jawaabo, maantaba waa gadan karnaa, waana soo gadannay oo hadda hubab waaweyn oo aanan hore noogula ogolaan jirin ayaan sanadkii hadda lasoo dhaafay, hadday noqon lahayd helicoptero iyo hadday noqon lahayd hubkan waaweyn oo waagi horeto sida zuuga iyo artilleriyada qaalkood, farsamadii naloo oggolaaday ayaan kusoo gashanay dalka. marka su-aashu waa haa, laakiin xagga oo sumcadda iyo maaragtay ayaysan ku sahlanayn inaad sida dunida sidii dal caadiya ula macaamisho. qodobka dabcan arrimaha aan de kor inaan u qaadno oo maaragtay tayadana waxaa ugu waaweyn ciidamada lugta keliya maahe ciidamada cirka iyo ciidamada badda oo xeebtaas dheer sida loo difaaci lahaa oo maaragtay dambiilayaasha iyo dowladaha shisheeye intaba looga difaaci lahaa. annagaa la wareegayno mar haddii ay maaragtay chapter 7ka aan ka dhammaano sovereignty-da Soomaaliya completely, Soomaaliya iyada waa inay difaacato. waxaa soo haray su-aasha ahayd maxaa loo soo abjari laayahay fayska koowaad oo ceelbuur waa taad mar hore tiri. dabcan arrimo farsamo oo jiitana way iska jiraan, laakiin waxaan ku ballan qaadayaa in aan weli meesha taaganahay oo diyaargarowgii meeshii u dambeysay ay joogto. dabcan isbeddel talis ayaa dhacay oo taliyo cusubaa yimid. hawshaas waa garan kartaa dhileygay abuuri karto, laakiin waa sideedii. fayska labaadna sidiisaba wuxuu weli u taagan yahay arrinta fayska koowaad oon lasoo dhammaystirin, in uusan fayska labaad macnaha uusan bilaaban karin. isaguna waa ready, ciidamadii nagala qayb qaadan lahaa oo ajnabiga ahaa waa diyaar. ciidamada Soomaalida oo dhulkaas jira iyo kuwa kaleeto inay usoo diyaar garoobaan inay fayska labaad kala qayb qaataan, maadaama iyagu ay hogaaminayaan. fayska labaad waxaa hogaaminaya taliye Soomaaliyeed, laakiin talisyo kaleeto oo ajnabi ah ayaa qayb ka ah. su-aasha u dambaysa